waxaa xalay aqalka gobolka loogu arrimiyo ee beledweyne ku yaala lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegay 1 Luulyo oo ku beegan maalinkii xornimada ay ka qaateen gobolada koonfureed ee dalka gumeystihii Talyaaniga isla markaana waafaqsan israacii gobolada koonfur iyo waqooyi ee dalkeena hooyo ee Soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano Hirshabelle ka mid ah saraakiil ciidan qeybaha kala gedisan gudoomiyaha gobolka iyo xubno kale oo maamulka heerarkiisa kala gedisan ee dowlad goboleedka Hirshabelle ka mid ah ayaana munaasabada ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada beledweyne Cismaan Dhuubo Dhicisow abaanduulaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka General Saalax Yacquub gaashaanle Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ku-xigeenka xeralaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Korneyl Isaaq Cali Cabdulle taliyaha qaybta booliska gobolka Xaawo Axmed Maxamed madaxa gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Faarax Cabdi Cali oo goobta ka hadlay ayaa dhamaantood si isku mid ah waxay hambalyo ugu direen shacabka Soomaaliyeed horta marka hore waxaan leeyahay hambalyo Soomaali weyn hambalyo waa 1 Luulyo waa markii Soomaaliya xornimada ka qaadatay labada gobol ee Soomaaliya oo isu yimaadeen midoobeen waxa way 1 Luulyo waa habeen farxad leh waxaan leeyahay farxadan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto runtii caawa farxadayda ma soo koobi karo maadaama ay tahay 1 Luulyo oo ah maalin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan qiimo u leh khudbadaha oo badan darteed ayaan rabaa hadalkayga inaan soo gaabiyo waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto ma rabo inaan hadalka sii saarnaado waxaan rabay inaan fursadan ugu faa'iideysto gudoomiyaha gobolka asagoo dhagihiisa iyo indhihiisa ay ku arkayaan mudane gudoomiye dadka reer beledweyne waxay kaaga baahan yihiin waxa waay in la hormariyo waxaan rabaa caawa waxay tahay waa habeen aad iyo aad qiimo weyn u leh ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto caalanka sidee lagu keenayaa caalankan waxaa keenay oo dhaliyay 13 nin oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo ku hadlayay afka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed maanta ama caawa waa maalin weyn waa maalintii xorriyadda Soomaaliya isku darsankii labada gobol waa 60 guuradii calanka Soomaaliyeed gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Jeyti Cismaan oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in muhiimad aad u weyn ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda waxa uu ku dheeraaday halgankii kala duwanaa ee loo soo maray xornimada Soomaaliya min koonfur ilaa iyo waqooyi caawa waa 1 Luulyo ama 1 Juulaay hadba sida loo yaqaan waxaa la yiraahdaa waa maalintii Soomaaliya ay midowday South Soomaaliyana xorriyadda ay qaadatay runtii waa maalin farxad leh marka dhinaca laga eego dhinaca kale marka laga eegana marxaladda aan ku sugannahay iyo siyaabaha wax yihiin markaad eegto maalmahan hadda kulley waa ka wada warqabtaan marxalad laba reer oo Soomaaliya oo gobolkan wada degan dhex martay ayaa muddo mashquul lagu ahaa waxaa laga yaabaa su'aalo badan inay ka jiraan oo ah war arrintii xaggee ku dambaysay maxaase ku dhacay arrintii dhibaata kama jirto waxaa nuxurkeeda iyo gabagabadeedu noqotay aan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto koow waa xabad joojin leesla qaatay dowlad deegaanka Soomaalida ee dhanka Itoobiya aad ogtiin wafti ka mid ah inuu halkaan yimid iyo wafti dowlad goboleedka Hirshabelle
muddo badan inay isdhaafdhaafayeen arrintaasna laga xaajoonaya waad la socotaan arrintii waxay salka soo dhigtay koow xabad joojin muddo 45 cisho gudaheedna in la isugu yimaado dib u heshiisiin labadaa beelood lagu heshiisiiyey annaga ka maamul ahaan labadeena dhinac meeshaasaan soo dhignay marxaladdii waxaan rabaa qolo kasta ay xabad joojintaa inay dhowrto Afrikada bari markii ay garabka la heshay abaara 12 saqdii dhexe ee xalay ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxay calanka ay ka taageen aqalka maamulka gobolka munaasabadan loogu dabaaldegaya sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ee dalka ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga kuna beegan midnimadii ama israaci gobolada koonfur iyo waqooyi ee xalay beledweyn lagu qabtay ayaa ahayd munaasabadii ugu ballaarneed ee abid beledweyn lagu qabto ee lagu xusayo toddobaadka xorriyadda ama maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalson TV, Beledweyne.